بيار ديفانا هوتاهي mid kamid ah aflaamta jaceylka kaas oo Covid Iranian muqrajaysa sameeyeen kan waa film ay Soomaalidu aad u xiiseyn jireen xilligii shaleemooyinka waa film jaceyl ah kaas oo aan laga daalin daawashadiisa hadda waxaan la wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar filmkaani sidoo kale waxaan qaybaha dambe idin kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha aflaamta balse inta u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalka soo birto muuqaalka dadka ee shalaag inoo saarsi share gareeyo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal filmkan Biyar Divaana Hootahay waa mid kamid ah aflaamta jaceylka aad loo xiiseyn jiray xilligii cusbaa waa mid kamid ah aflaamta ay Covid Iranian muqrajay ku xarakeen walow natiijo lagu farxay uusan gaarin haddana waa film ay Soomaalida qaar aad u xiiseyn jiray xilligii shaleemooyinka filmkan waxaa ku jirta mid kamid ah heesaha loo jecel yahay dhageysigooda ama daawashadooda filmkan Covid Iranian muqrajay on buur iyo Lashmagan Dibardi ayaa ku weeliyay saaxiibayaal marka la eego filmkan waxa uu soo baxay 26 Abriil sanadii 2002 lacagaha lagu qarashgareeyay inuu 4.25 karoor in ka badan $550 Mareykanka waxa uu keenay 1 karoor oo kaliya taasoo ka dhigan filmka inuu noqdo film disaster ama film burburi waana film aad looga khasaaray lacagii lagu qarashgareeyay 3 qayb marka loo dhigo 2 qayb iyo bar waa uu dhumiyay filmkan 4 karoor ayaa lagu qarashgareeyay waxa uu keenay 1 karoor oo kaliya taasoo ka dhigan filmkan inuu noqdo film disaster ama film burburi saaxiibayaal markaan eegno filmkan iyo sidoo kale xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay hal ilaa ayaan ka eegi doonaa filmkan waa filmkii ugu dambeeyay oo Covid oo hogaamiye ka yahay kaas oo ka soo muuqdo ninka lagu magacaabo Lashmagan Dibardi Soomaalidu qaar balaq ay u yaqaanaan ninkan wuxuu kamid ahaa jilayaashii aflaamta inta ugu badan 900 ka soo muuqan jiray waana mid kamid ah jilayaasha dhanka faniga ama doorka comedy kaga soo muuqan jiray waxa uu geeriyooday marka la eegana 12 December sanadii 2004 asagoo waliba konton jir saaxiibayaal xaqiiqada ugu dambeysay filmkan in kala wadaagi doona xawiyaan Covid Iranian muqrajay isla sanadaasi 2002 waxa uu soo baxay filmkii shactirada badnaa ee Jalo Ishqi la raay xaqiiqada ugu dambeysay filmkan in kala wadaagi doona xawiyaan heesta Biyar Divaana Hootahay inta ugu badan muuqaaladeeda waxa lagu soo duubay gudaha dalka Switzerland waliba townka ama magaalada yar ee lagu magacaabo Interlaken waana magaalo kamid ah magaalada inta ugu badan Bollywoodka ee aadaan heesaha ay ku soo duubaan intaas haddii aan kaga gudubno xogta filmka Biyar Divaana Hootahay markaan waxaan eegi doonaa aflaamta maanta oo jamcada tiyaatarada Hindiya la saari doono waxaa subaxnimadii saakay tiyaatarada Hindiya la saaray aflaam uu kamid yahay Love Riyaba kaas oo hogaamiye ku yahay Jonathan Khan waa wiilka uu dhalay macruudka Amir Khan iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Kushi Kapoor Sardiif ee dhashay sidoo kale aflaamta kale la saaray waxaa kamid ah filmka lagu magacaabo Badaz Ravi Kumar kaas oo hogaamiye ku yahay Hamish Rashmi ama muusigiistii caanka ah ee Hamish Rashmi aflaamta kale dib loo saari doono tiyaatarada ama dib loo saaray isla maantadan waxaa kamid ah filmkii silsila kaas oo ah mid kamid ah aflaamta kalaasiga ah oo xilligii يعني برسمات كي سميين أميتاب بكشن ريقاي سيدو كله قبل لوج مجا جايا بكشن أو لحظة يعني أميتاب بكشن أفلام تكله ديب لو صارت يعترض هندي وحكم هذا فيلم كجعل كأي سنة تري كسم كاس كمية أفلام تجعل كأد كلو حيسي سنة دي جود بيأد يلو حيسي فيلم كاسي وحاسب حسيد مدن قبل فيلم كاسي كنت جبت إن أسبوع عن جوده بقى جوستي wiil caanka ah gudaha dalka Pakistan iyadoo Pakistan ay ka soo jeedaa waxay guursatay wiil Pakistani saaxiibayaal aflaamta kale waxa lagu xusi karaa ninkii Ajit Kumar ahna maanta shal waxa tiyaatarada Hindiya loo saaray film lagu magacaabo Fida Muyarji waa film action ah waana Tamil marka la eego bilaawashada wanaagsan ayuu ku bilowday sheekooyin kale goosgooska waxa qayb ka ah gabadha lagu magacaabo Janvi Kapoor waxay walaasheed Kushi Kapoor u rajaysay guul maadaama filmkeedu ugu horeeyay maanta tiyaatarada Hindiya loo saaray waxay qayb kale tahay Amir Khan wiilka uu dhalay Jonathan Khan isla Amir Khan markaan eegna waxa la leeyahay wuxuu xiriir hoose la leeyahay gabar lagu magacaabo Gauri taasoo Bangalore ka soo jeedo gudaha dalka India saaxiibayaal haddaba intaas ayaan soo gabagabeeyay muuqaalkayga fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar sii share gareeyo la wadaaga asxaabtaada oo aan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena